wax marayaan shalay toole waxa yimid madaxweyne Hirshabelle oo aanu xal shifaac soo dhaweynay saakana lafta galeen ayaa soo dhaweynay haddana waxay dadku u taagan yihiin ilaa saaka loo taagay asana la sugay marna soo degi doona Siciidani waxa ku sii xigi doona madaxweyne Axmed Madoobe dadka reer galmudug dhamaantood saqiir kibir looga kala hadlay airport ayaa la dhooban yahay ayadoo aad iyo aad loogu faraxsan yahay xagaaga iyo dabaylaha dhacaya dadku ay dareemayaan waxay u arkaan in guul weyn u soo hoyto marka shirku maanta ay u qabsoomaya miya mise maanta waa la nasanaya shirku wuxuu ku xiran yahay hadba sida madaxdu u timaado markii madaxda hadda hawada ku soo jirta ay soo degto haddii waqtigu uu masaabaxo waa horu ka bilaabanaya ama hadhowdii ama bixu bilaaban kara laakiin waxa anaga noo qorshaysay waxa weeye markii madaxdu ay dhulka wada timaado oo deegaankooda la dejiyo in shirku bilowdo waxa warbaahinta qaar haysata in madaxda qaar ay iyagu wataan ciidan u gaar ah amnigooda sugaya marka ciidanka ammaanka sugaya ma kuwa ay wataan ba mise waa ciidankii galmudug ciidanka galmudug baa ammaanka sugaya oo dhammaantiis deegaanada la wareegay booliska iyo daraawiishta ayagana ammaanka kula filan sugayana ammaankuna awalba waa sugnaa marka ajendayaasha shirka laga hadli doonaa ma sii qeexan yihiin oo madaxdu ma ogyiin mise weli ma cadda ajendayaasha shirku inta guud ahaan hadda laga dhareysay waxa weeye in mowqif midaysan oo maaragtay Soomaalnimo ku dheehan tahay oo siyaasadda Soomaaliya lagu wajahayo ay la iska waraysto sidii dalku xaaladda uu ku jiro ay u noqoto mid aan kala jiijid lahayn isku meel loo dheelmo kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle oo uga warramay halka wax marayaan shirka la filayo inuu dhawaan uga furmo Dhuusamareeb